بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة أين كورمي دونو وحوي قصة نبي أيوب عليه السلام. ayuub markaa maqashaan waxaa xasuusanaysaan samir iyo qofka sida uu dulqaato iyo dhibta sida loogu samro. subxaan allah. nebi ayuub calayhi salaam wuxuu ka soo jeedaa wiilashii u dhalay nebi isxaaq calayhi salaam. siday la socona nebi isxaaq waxa uu dhalay laba wiil, waxay ahaayeen nebi yacquub iyo ciis, oo isagana lagu tilmaamay inuu ahaa nebi. ciis waxa uu aabbow yahay romaniska iyo dadkaas u badan inta badan reer yurubka. subxaan allah. nebi ayuub waxuu ka soo jeedaa markaa ciis ibnu isxaaq calayhi salaam. nebi ayuub waxuu caan ku yahay samirka iyo adkaysiga oo runtii aada u cajiiba qisooyinkiisa. xaqu subxaana wa tacaala qur-aanka in badan buu kaga warramay, meelo badan ayuu kaga warramay nebi ayuub asagoo la ammaanayo, laguna ammaanaya samirkii faraha badnaa ee uu la yimid. haddii aan ku bilowno nebi ayuub calayhi salaam, dhallinyarinimadiisii waxauu eebbowsiiyey ubad aada u tiro badan, 14 carruuro, xaas fiican, xoolo badan. sidoo kale waxa uu lahaa dad badan oo u adeega una shaqeeya. hanti badan buu eebba ku manaystay. subxaan allah. sidoo kale waxau lahaa oo lagu manaystay beero waaweyn oo ay ka baxaan dhammaan khudradaha noocyada kala duwan. waxaana u dheeraa intaas nebinimo, cibaado badan, iyo adduunyada uu ka saahiday, iyo isagoo ahaa nin qurux badan oo nolol aada u raaxa leh ku noolaa. noloshaasoo qof kasta oo uu iska niyeysanaya ama uu hamiyo inuu ku noolaado. muddo 70 sannadood ah ayuu nebi ayuub uu ku noolaa noloshaas nimcada ah iyo barwaaqada ah, waana ugu shukri naqaye eebba subxaana wa tacaala oo waa mahadinayay. sadaqada iyo sekada iyo wixii ku waajibka ahaa iyo weliba dheeraadyona waa bixinayay. balse imtixaankii iyo beledii ayaa eebba subxaana wa tacaala ayuu ku soo rogay. kadib waxaa bilaabantay oo hal mar isbedelay xaaladii nebi ayuub. waxaa asiibay xanuunkaas iyo jiradaas waxaa la dhahaa waxay ahayd xanuunka sida faaliga oo kale ama strowka oo kale. waxay kaga dhacday nebi ayuub 4 lugoodba, yacni 2 lugood iyo 2 qacmoodba ma uusan dhaqaajin karaynin. xanuunkaasaa ku habsaday, waa la kici kari waaye. kadibna xoolihii ayaa baxay, waa khasaaray xoolihii, beerihii, shaqaalihii, wixii oo dhan waa ka tegeen. sidoo kale waxaa geeriyooday dhammaan 14 wiil, 14 carruura ee uu dhalayna way dhinteen. subxaan allah. nebi ayuub calayhi salaam asagoo dhulka yaal oo xanuun daran uu hayo ayaa loo sheegayay maalinba maalinta ku xigta, ubadkaagii maanta hebel baa dhintay, maanta kii kale ku xigaa dhintay, maanta kii kale ku xigaa dhintay. waxaad qiyaastaa aabba dhalay 14 carruura oo 14 jeer maalin walba qalbigiis uu dhaawac soo gaadhayo oo la leeyahay hebel baa maantana ay ka baxday. subxaan allah. waa fitno aada iyo aada u weyn. subxaan allah. iyo belo aada u khatarsan. waxaa ehelkiisii kasoo gaadhay kasoo hadhay oo keliya xaaskiisii oo ahayd gabadh aada u fiican runtii. waxayna noqotay gabadh faqiirada ah oo aan xoolo haysan, oo xoolihii khasaartay, halkii ay shalay ka ahayd gabadh xurmad leh oo hanti leh oo saygeedu uu caafimaad qabo oo ubad badan leh. laakiin maanta ubad ma leh, oo saygeedii wuu xanuunsanaya, oo xoolo ma leh. waxay isu beddeshay faqiir oo hanti aan haysanin. markaa waxay dantii ku kaliftay inay shaqo tagto oo ay u khidmayso guryaha, khaadimad ay noqoto, u jaariyayso oo jaariyad ay noqoto guryaha dadka in ay khidmayso
ayay u shaqo tagtay si ay u soo bixiso nolol maalmeedkeeda. nebi ayuub calayhi salaam waa samray, waxaanu ahaa addoon aan mar keliya ka caajisaynin dikriga eebbe subxaana allah. inkasta oo ay dhibtii ku badatay oo ubadkii ay ka geeriyoodeen oo xoolihii uu waayey, haddana oo isagiina uu xanuunsanayo, haddana mar keliya kamuusan caajisin dikrigii eebbe. nebi ayuub calayhi salaam jidhkiisii waa idlaaday, waa xanuustay, waxay gaadhay heer uu jidhkii soo daato oo uu dhacdhaco, uu googo-o subxaana allah. taasina waxay keentay in uu jidhkii ur sameeyo. dadkii way ka haajireen, dadkii oo dhan, marka laga reebo xaaskiisii oo iyadu ku mashquushay daryeelka iyo cunto siinta saygeeda. maalin maalmaha ka mid ah ayay xaaskiisu ku tidhi nebi ayuub calayhi salaam, maxaad eebbe u bari weyday? nebi baad tahay, ilaahay wuu ka aqbalaya ducadaada, ilaahay bari, dhibaatadan ha kaa dulqaadee. nebi ayuub waxa uu weydiiyey xaaskiisii, imise sannadood ayaan caafimaad qabay, imise sannadood ayaan barwaaqaysnaa? waxay ku tidhi muddo 70 sannadood ah ayaad caafimaad qabtay oo aad ku nooleed nolol barwaaqo ah. nebi ayuub calayhi salaam waxa uu yidhi, haddaba waxaan samrayaa oo dhibtan u adkaysanayaa 70 sannadood oo kale. sidoo kale waxaa la soo arooriyaa in shaydaanku subxaana allah uu iman jiray, uu ku odhan jiray, nebi ayuubow, haddii aad nebi tahay, muxuu eebbe ku caafimaadsin waayey oo xanuunkan kaaga dulqaadi waayey? nebi ayuub waxa uu yidhi, 12 sannadood aan xanuunsanayay oo waxaan dhaafsadaa 70 sannadood oon caafimaad qabay oo aan nimco ku noolaa. laa ilaaha ila allah. maalintii dambe ayaa 2 wiil oo uu la dhashay nebi ayuub calayhi salaam ayaa waxay dhaheen, ayuub dembiyadii uu galay ayaa lagu ciqaabay. waxa uu la xanuunsanayo ee uu la jiifo ee xanuun aan dadkaba ku dhicin uu ugu dhacay, ee xoolihii uu waayey, ee ubadkiisii mid mid ay u dhinteen, waxa weeye dembiye uu galay subxaana allah. u fiirso, waa dadkii dad ugu dhowaa ehelkiisii ayaa sidaa ku hadlayay. dadkii kale ka fogaana hadalkooda daa waxay dhahayaan subxaana allah. kadib nebi ayuub calayhi salaam waa maqlay hadalkoodii, waxaanu baryey eebbe subxaana wa tacaala. waxaanu yidhi, eebbow, haddii aad og tahay inaan seexday habeen anuu og in cid kale oo beledka ku nooli ay baahan tahay i rumayso, eebbow waa rumaystay. haddana waxau yidhi, eebbow, haddaad og tahay in aan 2 shaati gurigayga ku dhigtay ayadoo aan ogahay in qof kale oo aradan oo aan marya lahayn uu beledka joogo, i rumayso, eebbana waa rumaystay subxaana allah. 2 wiil ee ay walaala ahaayeen way maqlayeen arrinka kan. nebi ayuub calayhi salaam waxa uu samray muddo dhan 18 sannadood oo dhibtu marba marka ka dambaysa ay sii kordhaysay oo ay sii ballaadhanaysay. ugu dambayn xaaskii nebi ayuub calayhi salaam oo ahayd masterkii iyo meeshii ay cuntadu ka soo gelaysay iyo hantida ee qofkii daryeelayay ayaa shaqadii loo diiday. yacni u fiirso sida imtixaanka iyo dhibta ay ugu sii siyaadaysay nebigaas addoonka wanaagsan ee ayuub calayhi salaam. xaaskiisii waa loo diiday shaqadii, albaabada laga soo xidhay, khidmadii ay u khidmaynaysay dadkana waa loo diiday. kadib markay aragtay in ay xaaladdu aada u xun tahay oo aanay waxay cunaan aanay haysanin, ayay waxay dantii ku kaliftay in ay timaheedii intay goyso oo ay googoyso oo ay duuduubto in ay iibgeyso. subxaana allah. heerka faqriga heerkaasi ka gaadhay subxaana allah. markii ay iibgeysay ayay kusoo gaday cuntadii, deetana waxay u keentay nebi ayuub calayhi salaam. markaasuu nebi ayuub weydiiyey xaaskiisii, halkay ka keentay cuntada? waayo waxauu ogaa in loo diiday in ay khidmayso ama shaqadii in loo diiday ayuu ogaa nebi ayuub. xaaskii way ka warwareegtay inay u sheegto arrinta tan, balse nebi ayuub waa ku adkeeyey
markuu ku adkeeyey ee uu ku celceliyey ayay xaaskiisii u warrantay oo waxay ku tidhi timihii ayaan gaday timahayga ayaan jaray subxaan allah nebi ayuub waxa uu ku nadaray markaa inuu 100 ul ah ka jaro xaaskiisa markuu caafimaado timaha ay jirtay aawadeed nebi ayuub calayhi salaam markuu arkay inay dhibtii ku badatay oo ay meel xun gaadhay ayuu eebbe waxa uu ka baryay oo waxa uu yidhi rabbi innii massaniya adurru eebbow dhibtii ayaa i taabatay wa anta arxamu arraaximiin adiguna waxaad tahay rabbi naxariista laa ilaaha ila allah mausan odhan eebbow caafimaad isii xoolay sii ubadkii ii soo celi waxuu eebbe ka baryay oo keliya in ay dhibtii taabatay adiguna eebbo waxaa tahay rabbi naxariista xaqu subxaana wa tacaala waa u gargaaray addoonkiisii wanaagsanaa ee samray waxaanu ka dhigay tusaale nool oo ilaa yowma alqiyaama la akhrinayo waxaanu ka dhigay ruux lagu daydo oo ku dayasho mudan maalintii dambe ayaa eebbe subxaana wa tacaala farajkii eebbe ayaa u yimid waxaa la faray nebi ayuub in lugihiisa uu dhaqdhaqaajiyo kadibna uu istaago oo ku qubaysto biyo ka soo burqamay gurigiisa sidoo kale waxaa la amray in uu cabo biyahaas markuu biyihii ku qubaystay ayaa waxa uu ka bogsaday oo ka ladnaaday xanuunkii jidhka sare kadibna waa cabay biyihii oo waxa uu ka bogsaday xanuunkii jidhka gudihiisa waxaanu isu bedelay qudradda eebbe subxaana wa tacaala nin dhallinyaro ah oo qurux badan maasha allah xaaskiisii ayaa timid gurigii waxayna saygeediibay raadisay oo weyweyday subxaan allah qalbigeedii warwar iyo walbahaar baa ku dhacay waxay mooday in bahal cunay waxays tidhi talo miyuu dhintay subxaan allah kadib waxay aragtay nin dhallinyaro ah oo aada u qurux badan maasha allah waxayna weydiisay saygeedii ayuub calayhi salaam ninkii waxau ku yidhi ayuub waa aniga oo waxa ishaafiyey eebbahay maasha allah kadib way fiirisay wejigeesii waxay xasuusatay waayo iyo wakhtigii uu aadka u dhallinyarada ahaa ee uu nebi ayuub u ahaa nin dhallinyaro oo xoog leh oo qurux badan maasha allah kadibna way faraxday waxaana iyadana ay cabtay biyihii oo iyada laftigeeduna way dhallinyaraatay oo way caafimaadeen eebbana waxa uu soo celiyey xoolihii iyo ubadkoodii beerihii iyo shaqaalihii dhammaantood oo dhan eebbe waa u soo celiyay qudradda eebbe waa nimcooyinkii iyo naxariistii eebbe subxaana allah waxaana ku guulaysta oo keliya ciddii samirta ee u samirta dhibta soo gaadha nebi ayuub waxaa loo dhalay ubad ka badan kuwii hore iyo xoolo ka badan kuwii hore laba jibbaar ilaahay wuu laba jibbaaray halkuu 14 ahaa 28 ubada maasha allah xoolo intii uu lahaan jiray in kasii badana beero intii kasii badana shaqaale intii kasii fara badan subxaan allah nimcooyinkii eebbe wey ayuu eebbe ku marnaystay maasha allah waxaa la sheegay in dahabku samada uga iman jiray oo dahabku cirka uga soo daadan jiray nebi ayuub aakhirkii markii dambe waxayna ku noolaayeen nolol barwaaqo ah laakiin intaasoo keliya adduunyada oo keliya kumausan barwaaqaysnayn ee eebbe xaqa subxaana wa tacaala waxa uu ballan qaaday in uu nolol raaxa lena ku noolaan doono maalinta qiyaame inuu jannadiisa gelin doono iyo qof kasta oo muslim ah oo samra oo u samra dhibta soo gaadha waxay tusaale u ah nebi ayuub ilaahay waxaan ka baryaynaa in uu nagu jamciyo oo nagu kulmiyo maalinta qiyaame jannada oo aanu kulan la yeelanno nebi ayuub calayhi salaam
اللهم آمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من كل مدونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.